السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيولاشين هدى بنت مختار أصحابتي إذا قالقا وايدين سلامي دمان ميل والبا أدوني ذكا جوكتين ولا لهيغا وحا إذن ليها عيد مبارك عيد العافية عيد مبارك عيد وناكسن ميل والبا أدوني ذكا جوكتين نبتكو عيدا إنا لله وإنا إلهي راجعون إنا لله وإنا إلهي راجعون والله وحلقنا حواي إن sabab aa u noqotid sawjadaada ama zawjkaaga dhimashadiisa inaa sabab u noqotid waa wax laga naxo wallaahi. Facebookan waxaan kasoo arkay aniga allahu aclam wixii dhacay aniga warkama haya, laakiin Facebookan waxaan kasoo arkay nin naagtiisa dilay maalinka ciida sabtida ahayd xalayaan soo arkay aniga. Horta sabtiga anaga waa soomaneen, Sacuudiga waa laga soomanaay, laakiin Soomaaliya waa laga ciiday. maalinka sabtida waxaa la yiri gabar mar dhow la guursaday, gabar la yiraaho idil allah u naxariiste oo mar dhow la guursado, ninka guursadana la yiraahdo dalmar. Aabageeda Facebook waxay soo dhigtay sida uga jeedin meeshan hadeertaan, waxay soo dhigtay suldaankeyga indhaha nuurkiisa allow aanan ku waayin boqorkeyga aamiin ay soo dhigtay. waxaa la yiri ninkan gabadhan gabar yaray ahayd, xaas hore iyo caruur uu lahaay, gurigiisa kale ku maqnaay. Facebook uu ka soo arkay, yani telefonkiisa wuxuu ku arkay Facebookeeda oo ay soo dhigtay sawirkiisa oo qoraalkaasna ay ku soo qortay. oo soo arkay waa soo cararay. Soomaali maxaa ku taqaanaa ninkii wuu soo cararaa la yiri mindi aan af lahayn ku qalay, nafta xataa wuu ku dhibay. laa xawla walaa quwwata illaa billah. marka horta allahu aclam wixii dhacay ilaaha og, laakiin gabadhaas ilaahay ha u naxariista, ehelkii iyo qaraabadii ay ka tagtayna samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiya, gacan ka xaq daranaa dishay, ilaahay qabrigeeda waasac ha oga dhigo. laakiin sida la sheegay waxaa la yiri wiilkii waa la haayaa, dowladda hayso, gabadhina shalayaa la duugay. aniga kulley YouTube-kan waxaan ka arkay shalay, Facebook-gan horta kow ka soo arkay marka hore, haddana YouTube-ka iyadoo la wadwadaan arkay sheekadii. qofka horta soo dilay, qofkii dilay iyo qofkii soo tabiyaba ani horta warkama haayo, ilaaha naga og. laakiin maalmahan waxaa soo badanaysa dilkaa soo badanaya. maalmahan bishaan hadda Ramadaan oo la soo dhaafay, maalmo ka hor Ramadaan ay ahayd, bisha cibaadaday ahayd, waxaa la yiri subxaanahu wa tacaala ilaahay ha naga najiyo wal ciyaada billah. waxaa la yiri maalmahaas gabaraa Kenya waxay ku dishay ninkeeda, daday ku dalbatay. يعني أبو عيال كاغا إلمهاغا آبوهود دمير كيكو سيي إنا سو ديشت سيئو أقلاتي إن آدتكو دلبتت. سبحان الله. هادانا وحالي يري سومالي هادانا قبر أور له آنين كيدو وحيكو قبتي مقدشو كو قبتي بنسيني كو شبتي. نحريستي إلمهاغا علوشو كو جرى آبوهود ما آنو عنو قاس مركو لاشا محاريه آبها أنا ديليا damiir xumo ma ahano. war haddii la ishayn waayo oo la noolaan waayo oo noloshaan lagu heshiin waayo, kolley iyadoo la isdagaalayo ama la isdilayo la isma guursanin. waxaa la isguursaday iyadoo la isu farxayo, la isjeceliyo gacali iyo gacalisa la isleeyahay. maxaa beenta la iskugu sheegaa marka hore? hadday kuu qorshaysan tahay inaad ninkan dishid ama kuu qorshaysan tahay inaad naagtan dishid, maxaa marka hore ula goyna? dhiigeeda ma lihid, dhaqankeeda leedahay. adigan ninkan dhiigiisa ma lihide, asaaba dhaqankaaga lehe. ma ilaahay ka cabsatiin? horta damiirka waa naga dhintay anaga Soomaali haddaan nahay, damiir ma leh. qarax haddii laga badbaado oo corona laga badbaaday oo gaajo laga badbaaday oo laga badbaaday xabad, haddana anaga lama kale liita buura awloojan isku dilayno, laba iskugu jeesanayna. war canaan ma ahan, ul ma ahan cunug aa ku dhufanayso oo ku dhahayo hooyo berri ma u noqonayo, aaba berri ma u noqonayo, mar kale ma samaynayo ma ahan. qofkan waa dishay, waa tegay, aakhira u dirtay. naxariistii iyo kalgacelkii iyo wanaagga idin soo dhexmaray aawe maalin ma soo xasuusanaysid? inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo wiilashaas dhinteen, ehelkooda iyo qaraabadooda oo la dilay, gabadhaas la dilay eheladeeda iyo qaraabadeeda samir iyo iimaan allah ka siiyo, qabrigeeda ilaahay ha u waasiciyo. bal hadda qalad ay gashay oo muuqdo meeshaan publicay waxay soo dhigtay inay ninkeeda jeceshahay, inay ku faanayso, magaciisa xataa kuma aysan soo dul qorinaa lagu dhahay, laakiin waxay tiri oo kaliya suldaankeyga. wiilkana dalmaraa la yiraahaa hal dhahay. marka subxaan allah, maxaa waaye ina hariisatay alle ka naariyamiya.
naxariis iyo kalgacal ay kuu qabto iyo jecel ay adig kuu qabto ay kuugu soo qortay ee baggeeda Facebook kuu soo dhigtay adigana waa qarinaysa oo gabadha qodbasire ahayd qodbasire hadday ahayd naagtaadii hadda waa fadeexowday meeqa fadeexa taagan tahay gabadhi waa dishay xaaskaaga ahayd oo hadda aa guursatay oo aroos jadiida ahaydeen aroos cusub isku ahaydeen waa dishay naagtaadii way ku ogaatay ilmahaagii way ku ogaadeen inaa mujrim tahay dilaa aad tahay maxaa kuu caaqibe ah war dhalinyaro iswaaniya taada kaleeta markii naag dhibaato loo geysto horta qof kacaysa ama ka hadlaysa animaba arkinbo hal wiil qurbaaha lagu dilo ama qaraxa ka dhaca Soomaaliya damiirku intaanu dhiman ala soo istaaga meeshaan hadda damiirka aawe war ma ilaahay laga cabsado anaga wiilal waa leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka barya wiilasheena iyo wiilasha muslimiinta iyo wiilasha Soomaalida oo dhan inuu ilaahay badbaadiyo ilaahay gacan islaameedna oosan sabab uga dhigin ama ay naagahooda dilin ama ayagaba aan la dilin ilaahay ka baryayna bal wiilka la dilayo la gubo hooyadiis ka waran xanuunkeeda yaa dareemi karo hooyaa dareemi karto anaa dareemi karo gabadha la dilay hooyadeed ka waran xanuunkeeda anaa dareemi karo hooyo dhanaa dareemi karto hooyo dhan way dareemi kartaa hooyo rabta ma jirto wiilkeeda in la dilo hooyo rabta ma jirto in gabadheeda la dilo marka ilaahay ka cabsada waa la idinku soo tiir iyo tacbeelo waa la idin soo kariyo waa la idin aroosiye yacni dooqiina waxaa rabtiina la idin sameeyey dooqiina ka ciyaarteen xabiibtii xayaatiya isa soo dhahdeen waa imaateen berri malkameeda isku noqonaysiin idinka isku sabab ah ilaahay Soomaali ha soo hanuuniyo ilaahay muslimiinta oo dhan ha soo hanuuniyo meel walbo adduunyada aan ka joogna ilaahay ha nagu xafido annaga qurbaa joognaa wadankii waa la isku dhameynaa qurbihii qariibaan ku nahay wadankeena qariibaan ku nahay ilaahay ha noo gargaaro Soomaali meel walba ku dhiban tahay ilaahay ha noo gargaaro fadlan asxaabteyda haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe like share comment nagu caawi wallahi waa ka xumaaday aniga waxaan lahaa waligay intaa meel soo fariista ma dhihin arrintaan oo kale waligay kama hadlin marka wax laga xumaado oo laga naxawaay gabar yar oo aad u qurux badan ahayd ilaahay qabrigeeda khayr ha ka siiyo ilaahay janno firdowsaha ugu bishaareeyo asxaabteyda qaaliga idinkana waxaa idin leeyahay hal isu duceeyo ilaahay quluubteena burcad ha isu mariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala Soomaali nabad ha dhex dhigo hadday isqabaan iyo hadday isdhaleen iyo hadday isla dhasheenba Soomaali cadow isku tahay Soomaali cadow isku tahay subxaanallah annaga haddaa isdilno adduunka waxaa la dhahay awaana la weydiiya annaga Soomaaliya maxay isku haysataa iskuma haysano ma la dagaalooyno qowmiyad kale ma la dagaalooyno annaga la isdiloyno ilaahay qulubteena burcad ha isu mariyo marka asxaabteyda qaaliga walaa wax kale ku hadla ma aqaani aniga ma jeclaysanin ani maalin dhaweed waa arkay dad badan oo ka hadlayo waa arkay wiil lagu gubay Muqdisho waa arkay wiil oo lagu dilay Kenya waa arkay marnaba ma ka hadlin marka gabadhan wallahi aada uga xanuunsaday subxaanallah inta ku dhimatay gacantadeedna oo sababsatayna wallahi waa ka xanuunsaday hooyo walbana waxaan leeyahay sabir iyo iimaan Allah ka siiyo hadduu wiil ka dhintay haddii wiil laga dilay haddii gabar laga dilay sabir iyo iimaan Allah ka siiyo hooyooyinka dhan waa u duceeyna annagana aan isu duceeyno ilaahay waxaan ka baryay meel alla meesha adduunyada ka joogtiin dalka iyo dibaddaba inuu ilaahay idinku xafido annagana ilaahay nagu xafido meeshaan joogno qof walba meesha joogtana ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ha ku caafiyo ilaahay ha ku xafido nicmooyinka ilaahayna siina alxamdulillah aan dhahno intaan haysan ilaahay ha siiyo Soomaaliya waa idin salaama meel walba adduunyada ka joogto